dalka Sacuudiga waxa uu kumanaan geel ah ka soo dhoofsanaya dalka Australia ama qaaradda Australia. Australia waa dalka ay ku nool yihiin geelka ugu tirada badan caalamka. Sidee arrinkan ay ku dhacday? Inkastoo aan ognahay in qowmiyadda ku nool ama dadka ku nool dalka Australia aysan dhaqanin geela. Maxayna tahay sababtu Sacuudiga u soo dhoofsanaya geelkan ku nool qaaradda Australia? Arrimahan oo xiiso badan ayaan muuqaalkan uga hadli doonaa. Bal saaxiibayaal intaan muuqaalka bilaabin, waxaan idinka codsanayaa inaad muuqaalkayga like gareysaan, page-kana aad soo follow gareysaan. aad iyo aad ay u mahadsantihiin. sanadku markuu ahaa 1788 jasiiradan waxaa gacan ku haynteeda la wareegay gumaystaha Ingiriiska oo waxayna ka tirsaneed dhulweynaha uu qabsaday gumaystiga Ingiriiska. Dhulkan uu imaaday gumaystaha Ingiriiska wuxuu ahaa dhul saxaro ah aadna u qallalan ayna adag tahay in ay ka gudbaan fardaha ama loo adeegsado fardaha gaadiid ahaan. Ingiriiska waxa uu ku fikiray in uu keeno jasiiradan geel aad u fara badan si uu u adeegsado gaadiid ahaan. wuxuuna dunida meelo kala duwan ka keenay geelo kala duwan. Ingiriiska markii uu keenay geelan gudaha Australia wuxuu ku daayay duurka ama saxaraha ayuu ku sii daayay geelka. haddana saxarahan dalka Australia kuma sugno xayawaano dugaag ah ama xayawaano dabcun ah. muddo badan ayuu geelkan ku tarmayay gudaha saxaraha dalka Australia. heer wuxuu gaaray geelkan ku nool dalka Australia inuu noqdo geelka ugu tirada badan caalamka. waxa uuna sababay geelan ku nool dalka Australia dhibaatooyin aad u fara badan haddii ay ahaan lahayd inuu cuno dalagyada kala duwan ee dalkan lagu beeray. sidoo kale wuxuu dhibaatooyin aad u fara badan u geystay goobaha biyaha lagu keydiyo ee ku yaala gudaha saxaraha ee dalkan. maanta oo la taagan yahayna tirada geelka ku nool dalka Australia waxaa lagu qiyaasaa malaayiin. Australia waxay adeegsanaysaa diyaaradaha helikabtar ah iyo weliba gawaari si ay u soo qabato geelan, waxayna ku soo qabanaysaa shabaqyo aad u weyn. dalka Australia mararka qaar geelkan waaba uu laynaya. haddana waxa uu bilaabay inuu u dhoofiyo dalka Sacuudiga maadaama Sacuudiga carabta ku nool ay dhaqdaan geela. geelka ku nool dalka Australia waxaa lagu qiyaasaa ama lagu sheegaa in uu yahay geelka ugu adag uguna caafimaadka badan dhammaan geela ku sugan dunida. aad iyo aad u mahadsantihiin daawashada muuqaalkan aad daawateen. fadlan muuqaalka like gareeya, page-kana soo follow gareeya si aad u heshaan xogo xiiso badan oo dunida ku saabsan.